weji kale oo taariikhda classic ah ayay qori doonaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona markay caawa isaga hor iman doonaan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ciyaar cusub oo classic ah ayaa la filayaa inay dhex marto Barca iyo Real Madrid taasoo macno weyn ugu fadhida labada kooxood kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay baajiso rajada ku guuleysiga Real Madrid ee horyaalka halka ay Los Blancos doonayso inay talaabo u qaato hanashada horyaalka La Liga xilciyaareedkan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa ciyaaray classicadii ugu horeysay 13 March 1902 ciyaartaas ayaa ahayd semifinalka koobkii ugu horeeyay waxayna guushu raacday Barcelona oo ku badisay 3 gool iyadoo xilliga ay garoonka joogeen 1500 oo taageero ah guushii ay ku badisay 8-2 Real Madrid ayaa ahayd guushii ugu weyneed oo Real Madrid El Clasico kaga gaarto Barcelona horyaalka La Liga waxaana taasi dhacday xilciyaareedkii 1934-35 iyadoo dhanka Barcelona ay 5 waxba ku badisay xilciyaareedkii 1973-74 balse guuldaradii ugu xanuunka badneed ee Real Madrid ka soo gaartay El Clasico waxay ahayd midii dhacday xilciyaareedkii 2008-2009 ciyaarta ayaan ku soo dhamaatay 6-2 oo ay ku badisay naadiga Barcelona Real Madrid ayaa ah kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay El Clasico waana 301 gool halka Barcelona ay dhalisay 299 gool Lionel Messi ayaa ah goolaliyaha ugu sareeya taariikhda El Clasico isagoo dhaliyay 26 gool isagoo 8 gool ka horeeya labada ciyaaryahan ee Cristiano Ronaldo iyo Alfredo Di Stefano halka Vinicius Junior uu yahay goolaliyaha ugu sareeya ciyaartoyda hadda ee labada kooxood ciyaaraya El Clasico kulanka El Clasico ee caawa ayaa noqon doona kii 102 ee ka dhacay Santiago Bernabeu 101 kulan ee hore ee Clasico Real Madrid ayaa badisay 51 jeer 28 jeer waa laga badiyay 22 jeerna barbaro ayay kaleen iyadoo la og yahay inuu yahay garoonkii lagu arkay tirada ugu badan ee lagu ciyaaro El Clasico guushii hal waxba ahayd ay ka gaartay Barcelona Real Madrid ayaa isha ku haysa laba gool oo xiriir ah markii saddexaad qarniga 21aad Real Madrid ayaa ka raacday Barcelona labada kulan xilciyaareedyadii 2007 2020 iyo 2021 xidigaha labada meelood soo xirtay ee ka soo muuqda kulanka weyn ee El Clasico inkastoo uu xifaaltan adag ka dhaxeeyo Real Madrid iyo Barcelona haddana waxaa jira ciyaartoy soo wada xirtay meelida labada kooxood kulanka El Clasico ka soo muuqday waxaana kamid ah Luis Figo Ronaldo Nazario, Luis Enrique, Samuel Eto'o iyo kuwa kale. El Clasico ayaa caan ku ahayd xifaaltankii ugu adkaa ee taariikhda soo mara kaas oo dhexmaray Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxaana cudubkeedii ugu dambeeyay uu ahaa 6 May 2010 kulankaas oo ku dhamaaday barbaro labada kooxood ah muddadii Messi iyo Ronaldo waxaa la ciyaaray 18 kulan oo Clasico La Liga ah 2 kulan oo Champions League ah 5 koob oo Spanish ah 5 Spanish Super Cup ah iyo 3 ciyaar saaxiibtinimo ah xaalada caafimaad oo dunida ka jira awgeed El Clasico ayaa la qabtay taageero la'aan waxaana tani ay sabab u tahay faafitaanka fayraska corona garoonka Camp Nou ayaa ahaa mid faaruq ah 24 Oktoobar 2020 waxaana badisay Real Madrid oo xilliga ku badisay 3 gool shantii kulan ee ugu dambeysay labadan kooxood ay wada ciyaareen saddex kamid ah waxa adkaatay naadiga Real Madrid halka laba kale ay adkaatay naadiga Barcelona kulanka caawa kii gool waxa adkaatay naadiga Real Madrid iyadoo la xasuusto in Barca ay ku hormartay goolka isla markaana laba gool u dhaliyay laacibka Jude Bellingham oo caawa ciyaaraya kulankiisa labaad ee El Clasico maadaama xilciyaareedkan ku cusub yahay naadiga Real Madrid hatta kulanka caawa yaa adkaan kara ku soo qarartida qaybta hoose ee commentiga mahadsanid